الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه تنزيل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، walaalyaal maanta waxay ku saabsan tahay xalaqadeenan nuurka nabiga calayhi salaatu wasalaam. nabigeena calayhi salaatu wasalaam nuurkiisa wuxuu camimay adduunka oo dhan ayuu camimay, oo waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa ognahay waxa weeye afdalu khalqillaah cala al-ilaaq, khalqiga ilaahay oo dhan midka ugu fadliga badan inuu yahay, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ka fadli badan inuu ilaahay adduunku uuna keenin. sidaa hortar waa wada ognahay, walaa nabiyun walaa waliyun walaa jinni walaa insi wasaa'ir makhluuqaat, jinni iyo insi iyo nebi iyo wali iyo inta makhluuqoo kaleetoo dhan nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ka fadli badan ilaahay koonka ma keenin subxaanahu wa tacaala. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa nuur waxa weeye daawadiisu ay tahay quluubta daawadeeda. qofka iimaanka leh oo ilaahay iimaan siiye subxaanahu wa tacaala waxa uu wax ku garto oo wax ku fahmo waxa weeye nuurka nabiga calayhi salaatu wasalaam. indhahaan aan leenahay hadda oo quluubul mu'miniin basaa'irul mu'miniin, aragtida nabiga ummaddu wax ku aragto, dadka mu'miniinta aragtida ay wax ku arkaan waxaa laga abuuray nuurka nabiga calayhi salaatu wasalaam. oo araggan aan wax ku arkeen oo waxaa laga abuuray nabiga calayhi salaatu wasalaam nuurkiisa, oo quluubta mu'miniinta ee macrifada ilaahay ay ku gartaan subxaanahu wa tacaala waxaa laga abuuray nuurka nabiga calayhi salaatu wasalaam. samadan oo roobka iyo biyaha noo keenayso waxaa laga abuuray, oo wax walboo nicmo ee aan ka helayno waxaa laga abuuray nuurka nabiga calayhi salaatu wasalaam. arladan aan ku soconno oo meel walba aan ku tagayno waxaa laga abuuray nuurka nabiga calayhi salaatu wasalaam. carshiga aad aragteen kursiga waxaa laga abuuray nuurka nabiga calayhi salaatu wasalaam. malaa'igta heesa waxaa laga abuuray nuurka nabiga calayhi salaatu wasalaam. malaa'igaha kaleetoo dhan waxaa laga abuuray nuurka nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka nuurka nabigu calayhi salaatu wasalaam anwaac badan ayuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam nuurkiisa. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuuna siiyo nuurka nabiga calayhi salaatu wasalaam. axbaabta meel walba ay ku sugan tahay inuu ilaahay siiyo nuurka nabiga ee ku liibaanaan oo iibaan la-aan ilaahay ku ridin baa ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala aayaddii aan ku furfuranaynay: qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin. qad jaa'akum waxaa idiin yimid buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala nuur ayaa idiin yimid oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, iyo wa kitaabun mubiin, iyo kitaab cad oo xaqa iyo baadilka aa ku kala fahamtiin baa idiin soo diray buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. marka cala al-idlaaq ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam nuur. ninkii u diidana nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yidhaahda nuur ma ahan, asigu unbaa meel khasaara tagay. meeshu aadi lahay baa la rabaa nebi maxamed hadduu u diido nuur, oo nebigu hadda meesha adduunyadan xuntaa ee wasaqda uu ku taxqiiriyo, qiyaamo meeshuu aadi lahay baa la iska rabaa. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam nuurkiisu waxa waaye wax la xaqiiri kara ma ahan, waa waxa waaye adduunkoo dhan camimo. oo hadda waxaad arkaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam intii aan la soo saarin waxa waaye adduunku wuxuu ahay nin ayaa wuxuu guursanayay gabadhiisa guursanayay,
waxaasoo dhan waxaa lagu tirtiray hadda ma jiraan nin gabadhiisa guursanay ma aragteen waa maya waxaasoo dhan waxaa lagu tirtiray nabiga calayhi salaatu wasalaam nuurkiisa ayaa lagu tirtiray salawaatullaahi wasalaamuhu calayh marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa nuur ilaahay koonka noo keena subxaanahu wa tacaala waa raxmad uu ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin wamaa arsalnaaka maana kuu soo dirin nebi maxmedow raxmatan lilcaalamiin caalamka oo dhan inaa u tahay raxmad ma ahane wax kaleeta maana kuu soo dirin marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa raxmad waana nuur ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey annagana inaan ilaahay uu subxaanahu wa tacaala ugu mahad celinno mukaafo wax la yidhaahdo ayaa jira buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaada ama qofkii aad wax ku amaalgudid aada haynin waa u mukaafootaa waa u beegtoontaa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam marka inaan u beegtoonno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aan u mahad celinno oon dhahno ilaahay oo nebi raxmad oo naxariis ayaa noo soo dirtay ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ugu shukrino subxaanahu wa tacaala weeye marka nabiga calayhi salaatu wasalaam walaalayaal waa nuur wuxuu yidhi jaabir bin cabdillaahi ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u imaaday maalin maalmaha ka mida markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulki ilaahayow akhbirnii can awali shayin qalaqahu allaahu shay ou ilaahay abuuray shaygii ugu horeeyey ii sheeg buu yidhi iiga waran ayuu yidhi jaabir bin cabdillaahi markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qaala yaa jaabir ina qad qalaqa qabla alashyaa nuuru nabiyika ilaahay wuxuu abuuray waxaa ugu horeeye waxaa intaan wax la abuurin nuurka nebigaada ayaa ugu horeeyey oo waxaa iskula jeedaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nuurkii nebigaadii ayaa la abuuray ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam min nuurkii nebiga ayaa nuur laga sii abuuray fa jacala daalika intaas kadib waxaa la gudagalay nuurun yaduuru biqadrin xaysu shaa allah waa socsocdo nuurka oo nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu ilaahay doono meeshuu gaaray ilaahay meeshuu la doonay ilaa uu ka gaaray nuurku waa socday walam yakun daalika waqtiga amuuna ahaanin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo nebiga calayhi salaatu wasalaam nuurkiisii markii la abuuray nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ma jirin waqtigaas looxu maxfuudka ma la abuurin walaa qalamka ee xukunka rabbi lagu qoro oo maaragtay malaa'igta ee wax ku qortane lama abuurin buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam walaa jannatun walaa naarun janno iyo naarna lama abuurin walaa malakun malaa'igtana lama abuurin walaa samaa'un samana lama abuurin walaa ardana lama abuurin buu yidhi dhulna lama abuurin nebiga calayhi salaatu wasalaam walaa shamsun walaa qamarun qoraxna lama abuurin dayaxna lama abuurin buu yidhi waqtigaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nuurkiisa la abuurayay walaa jinni walaa insi jinni iyo insina lama abuurin falamaa araada allah ilaahay wuxuu doona an yaqlaqa qalqigii inuu abuuro ayuu ilaahay doona subxaanahu wa tacaala qasama daalika nuurun arbacatin nuurkii nebiga nuurkii laga sii abuuray 4 ayuu loo qeybiyey qaybtii koowaad oo nuurka nebiga calayhi salaatu wasalaam laga sii abuuray markii 4 loo qaybiyey qaybtii ugu horeysay waxaa laga abuuray qalamka xukunka lagu qoro ayaa laga abuuray wamin saanii qaybtii labaad waxaa laga abuuray lawxul maxfuudka wamin saalisin qaybtii afraad waxaa laga abuuray carshiga suma qasama qaybtii afraad baa la qaybiyey nuurka qaybtii afraad ee lasoo qaaday ayaa haddana waxaa loo sii qaybiyey qaybtii ugu dambeysay ayaa 4 loo qaybiyey 4 baa loo qaybiyey qaybtii ugu horeysay waxaa laga abuuray buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xamalatul carsh malaa'igta
حنبارتن عرشي يا لغا أبو رب النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثاني قيبتي لبعض وحا لغا أبو كرسي يا لغا أبو ري ومن ثالث باقي ملائكتي كليتا يا لغا أبو رب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قسم قيبتي أودن بيسي أفراد قيبتان أي هدنا الله قيبي النبي عليه الصلاة والسلام أفراد الله قيبي قيبتي أوغو هوريسي أي هدنا وحا لغا أبو ري سمد أي لغا أبو ري ومن ثاني قيبتي لبعض وحا لغا أبو الرضا أي لغا أبو رب النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثالث قيبتي سدحاد وحا لغا أبو ري جنة والنار جنة إي نار تا لغا أبو ري ثم قسم رابعون قيبتي أفراد بالقيبي هدنا قيبتي أفراد أودن بيسا لا قيبي قيبتي أوغو هوريسي وحا لغا أبو ري أبصار المؤمنين إنها مؤمنين تأيى لغا أبو رب النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثاني قيبتي لبعضها لغا أبو رب النبي عليه الصلاة والسلام نور القلوب المؤمنين قلوب المؤمنين نور كود يا لغا أبو وهي معرفة بالله ومعرفة إله اللي قدرنا سبحانه وتعالى أي لغا أبو رب النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثالث قيبتي سدحد نور ألسنة في وهو التوحيد عربية توحيد ككل واقع أي لغا أبو رب النبي عليه الصلاة والسلام قيبتي سدحد ومن ثاني نور قلوب المؤمنين وهي معرفة ومن ثالث نور ألسنة وهو توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله أي لغا أبو رب النبي عليه الصلاة والسلام والتوحيد كالمؤمنين ككل واقع أي لغا أبو رقيبتي أفراد حديث كان وحا سو صاري إمام عبد الرزاق إمام البيهقي أي سو صاري حديث كان مركا نبي عليه الصلاة والسلام نور كيسو أدون كودم إنو عممي أسا نو شيغي النبي عليه الصلاة والسلام مركا ننحنا وهابي أو دين الله ما كده يسنين النبي عليه الصلاة والسلام نور مئهن نمان كان صوفيا يا اسكا كان صدي وحا دين معه من اسكا واقع يري وحا واي نور نبي مجرى سوق عوانا يا الباني دين معهن دين معها وانك فضوضا ويا الباني يري وحا مساجد كالنبي هلا الدمي او مساجد يقري اسكو ما اجعالي كراني هلا كلا الدمي بيري والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يا عائشة او سيدتنا هويان باكا فكويسان نينكي كهادليان نينكي دهيان نورك النبي وديد عليه الصلاة والسلام oo waa fadwooday oo hadda waxay dhahaanbo Nasruddin diinta islaamka inta ugu nasreeyay waa nin bidciya oo ilaahay diintiisa ka furtay way Albani oo aqeedadiisu leh aqeedo baatil ay tahay oo tawxiid la'aan ah oo asiga waa qaatim Muhammad ku sugan nin faase in la soo qaato hadalkiisa la yiraahdo asaa fadwooday oo yiri waxa waa nabiga calayhi salaatu wasalaam nuurkiisa lagama abuurin adduunyada ama nuur waxa waay qalqiga dhan lagama abuurin waxaas waa iska ruwaayad nin iska yiri weey marka nimanka wahabiyada waxa lagu yaqaana marka inay wax qalad sheegaan rabaan ama diinta islaamka dhinac inay wax xaraam ka dhigaan wax xalaal inay xaraam ka dhigaan markay doonayaan waxay sameeyaan waxay la imaadaan Albani iyo Ibn Bas iyo niman nacad ku wada dhacday oo ilaahay diin la'aan dhigay oo aqeedo xumo ku dhintay iyo mid xabsi lagu dhaxiray oo Ibn Taymiyyah la yiraahdo oo xabsi ku dhax dhintay waxaas ay soo qaataan waxaasna waxa waa diin ma ahan umada ayaa lagu qaldayaayo marka inta umadu maqasho waxay iska maqlayaan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah war Shaykhul Islam intuu ku noqday Shaykhul Islam waqti Ibn Taymiyyah joogay Shaykhul Islam Fikriyu Ansar baa Shaykhul Islam marka dadka islaamka waxaan doonaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka rajeynaa bidcada iyo balaayada iyo baaska iyo wahabiyada inuu Ilaahay ka qabto arlada iyo dhulkeena Soomaaliya inuu Ilaahay ka qabto ayaa Ilaahay ka rajeynaa subhanahu wa ta'ala fi hada alwaqti lagu sugan yahay waqtiga hadda aan ku sugannahay oo bidcada awood walba iyo wax walba inta isku dayda wadankeena inay dudumiso culimada
qubuurahoodii ay burburiso ee cilmigii iyo aasaartii iyo diintii iyo shareecadii oo dhan dhulka inay ku tumtay ee doontay haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa u diiday oo waa aragtiin hadda xaaladda ay ku sugan yihiin waa cararayaano nimankii waxaa lasii marsiinaya afgooyaa maqlaysaa qolo kaleeto halkaa waxaa maqlaysaa nimankii ceelbuur baa laga qabsaday kuwii kaleeto waa soo dhiibeen mid maalin dhexdaasa soo dhiibay wuxuu yidhi warbaahi bay nimanka nagu dilaano ninkii yidhaahdo waa baahday yidhaahdane qortaa laga jarayaa buu yidhi marka waa caqiida la-aan iyo diin la-aan ku dhacdo wey diinta islaamka ay xaqa ahayd bay ka tageen ilaahay wuxuu badan marka baahi iyo balaayo iyo xabad iyo in la barsado iyo gaalo in lagu salabo qofka hadduu ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ka tago oo diintiisii si dhaba ugu dhaqmin oo caqiidadiisii beeniyo caqiidadii ilaahay subxaana wa tacaala oo nabigeena noogu soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam ee haddana a'imadii ilaahay noogu dhiibay alimaam abu xasan alashcari ya iyo imaam maxamed maturidi raggaas baa ilaahay noogu soo xifdiyay caqiidada islaamka marka caqiidadaas annagoo heesano inaan caqiidatu wahaabiya aan raacno ilaahay ayaan ka magan galna subxaanahu wa tacaala najinaa min xawaali shaydaan aqulu qawlii wa astaqfiru allaha lii walakum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh